dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud cashkan wuxuu ka mid yahay casharada ereyda ahaa aynu ka qaadanayna college-ka cilmi academy halkan waxaynu ku baran doonaa 10 erey oo aad muhiim u ah sabuurada haatan 7 ii qaaday saddexda kalena dib baynu kaga dari doonaa hadduu ilaahay insha Allah. Okay, good. Ereyga koowaad waxaa loo akhriyaa additive. Additive waxaa la yiraahdaa tusaale haddii cunto aad karsanaysid ama cunto aad samaysanaysid walxaa cuntada lagu daro si uu dhadhankeedu u wanaagsanaado ayaa la yiraahdaa additive. Haddii qaybtan add ka soo qaadatid waa ku darid, yani hal lagu daray. You add 1 plus 1. Opposite-keeda markaa subtract ayuu noqonayaa, subtract waa ka jarid ah. Okay, additive waxaa loo isticmaalaa walxaa cunnada, cabitaanka, walxahaas lagu dardaro si uu dhadhankooda ama guud ahaan tayadooda ay u wanaagsanaato. Additive. Yes. Ereyga labaad adhere. Waxaa la yiraahdaa qofka yani sharciga inuu u hoggaansamo. Yes. Ama students should adhere the school rules. Ardayda waa inay aqbalaan u hoggaansamaan sharciga iskuulka. Adhere. Yes. Waa obey camal, u hoggaansamid ama adeecid. Obey ay isku macno yihiin. Okay. Ereyga saddexaad affinity waxaa la yiraahdaa qofka kani si dabiici ah inuu qofka kale u jeclaado ama wax kan uu jeclaado. Tusaale hadda qof heesaha jecel waxaan ku leeyahay you have an affinity for music. Yani jacayl dabiici ah baad u haysaa heesaha. Yani you have an attraction or a connection or a bond. Yani hees markaa maqashid waa jeclaanaysa. Waa jacayl dabiici ah. Natural likeness ama natural love. Jacayl dabiici ama qof ha ahaado ama shay ama music waxaa noocaas. Ereyga afraad affluence waxaa qof taajir ah, qof hanti leh. Wealthy ayay isku macno yihiin. Wealthy. Yes, so affluence hadaa maqashid yani waa taajiriin waay, wealthy. Ama haddii kale nolol waxay ku nool yihiin qaninimo. They live in affluence. They live in a wealthy life. Nolol waxay ku nool yihiin hanti iyo maal ah. Ereyga shanaad ail waa xanuun. Sick markaa xanuunsan tahay. So waxay isku macno yihiin sick. The ailing man ninkii xanuunsanaa ama the sick man ninkii xanuunsanaa. Sick for sometimes waxaan kaloo dhahayaa unwell. So well wanaag yani hagaag ma ahayn inaa wanaagsan tahay. Sick unwell waa dhigi kartaa. Tusaale for example waxaan leeyahay I am unwell today. Maanta caajis baa dareemaya ma fiicni. Yes. Ereygan kale waa alibi. Ereygan waxaa aad lagu isticmaalaa marka laga hadlayo crimes iyo gabadfalladii dambiyadii maxkamadaha meelahaas. Tusaale markii uu dambiga dhacayay ninkan meesha maba aanu joogin, magaalo kale ku maqnaa. Tusaale shalay Nairobi qof baa lagu dilay. Ninkan Nairobi markii qof lagu dilay saacadahaas isaga wadanka waa ka maqnaa. Yes, caddayntaas qofkii inuu meesha yani dambiga ka dhacay ka maqnaa ayaa la yiraahdaa alibi. Yes. Ereyga toddobaad waa all the range waxaa waayo very yani it covers a big distance weyn ayay waxa kani cover gareynayaan ama masaafo badan, range fara badan. All the range. Ereyga kale waxaa jira iyadana isku mid ay yihiin oo la yiraahdo all the rage waxaa waayo wax caan ah. For example, that new phone is all the rage. It means that new phone is the one that is trending. Waa midka suuqa ku jira ee socdo. Marka all the range masaafo badan iyo dhammaan yani distance fara badan. All the rage na waa trendy. Wax markaa socdo. Trendy. Wax markaa caan ah. Markaa fashionka ah. Tusaale sirwaalka socdo. Taleefanka socdo. Heesaha socdo. Lebiska socdo. All the rage markaa haddii aad maqashid qaabkaas ayaa iyadana loo isticmaalaa. So waa tirtirayaa si aan ereyada kale u qaadsiino. Good. Ereyga saddexaad ee aan cashka ku baranayno waa allude. Sorry, ma ahan waa allude saaxiib waxaa loo isticmaalaa yani inaad waxa kani you are giving or you are referring to something qaab indirectly ah. Yes. For example, you are suggesting or you are referring to these things. Ahmed baa ka hadlaysaa ama shay baad ka hadlaysaa ama qorshaad ka hadlaysaa. Yes, qorshihii toos banaanka mooda keenaysid. Laakiin indirect qaab adigu dahsoon
oo qarsoon oo indirect ah ayaad wixii banaanka u geynaysa. I don't know if it makes sense. Yes, you are giving suggestion or you are giving an hint about something in an indirect form. يعني tusaale qorshahan nimankan secret plan bay leeyihiin. They have a secret plan. Secret plan qorshe ay dadka ka qariyeen bay leeyihiin. Adigise waad ka warantaa. Qorshihii baa rabtaa inaad noo soo jeedisid oo fikrad naga siisid, hint naga siisid. Hint waa idea. Shaxdaas inaad fahansiisid. Markii aad wixii noo sharaxaysid qaab toos ah nooguma sheegaysid, waxaad noogu sheegaysaa qaab indirect ah. Yes, marka qaabkaas la yiraahdaa allude. Ereygaas waqti waa ku qaatay. I hope inaad fahanteen. Good. Ereyga sagaalaad waa aloof. Aloof waxaa la yiraahdaa qofka inuu dadka tusanayo yani waxa kan inuusan rabin. Tusaale xaflad baa lagu geeyay, you went to a party and then dadka ma aadan jeclaanin iyo qaabkii wax u socdaan. So kaliya waa meel iska fariisana, you do your own thing. Okay, so for example waxaan ku leeyahay, hey, what happened? You seem aloof at the party. xafladda waxaa kugu muuqata inaadan ka helin oodan maxay ahayd rabin. Dadka lama sheekaysanaysid, ma dhexgalaysid, kama qayb qaadanaysid, ma heesaysid, ma jaazaysid, ma dance garaynaysid. So you are aloof. It means you are not friendly or you are showing that you are not interested in this thing. waxa kan xiiso uma hayst ama ma rabtid. Yes, aloof ayaa la yiraahdaa. Good. Lastly, ereyga tobnaad aynu baranayno waa erey muhiim ah isna. Altruistic. Okay. Altruistic. Okay, yes, I think that's right. Altruistic waxa waayo inaad dadka jeclaatid, caawisid, u dhabar yani nuglaatid. Somebody who's just a good person. You help other people. You are very kind. Kind waa naxariis, qof naxariis badan, generous ah, deeqsi ah, dadkana rab inuu caawiyo ama si selfless dadku caawiyo ayaa la yiraahdaa altruistic. Selfless yani adoosan waxba reebanin. Okay, altruistic. For example, you are making a donation. Donation waxaa la yiraahdaa lacagaha la aruuriyo. Yes, deeq. Tusaale ceel baa meel laga dhisayo, masaakiin baa qadal yani dhar iyo ciid iyo waxun loo qabanayaa. Lacagaha la aruurinayo la yiraahdaa donation. Okay, so if you make an altruistic donation, it means you gave a generous, kind, selfless help. يعني si adoon waxba reebanin, deeqsinimo leh oo yani